السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم عرولاي. ما أنت كليل باكشيرا كليل سبحان الله. ولا سببينا يا ما أنت يلا اسبابيو هلا اسبابيو ما أنت waxaan idin akhriyayaa waxaan horta idinku ballan qaaday story wiiga soo socda insha Allah inaan sheeko Soomaaliyeed ka sheekeeyo sheeko Soomaaliyeed dee kamaydan soo jawaabin caruuray inaad jeceshihiin iyo in kale because maxaan adaa haddaad jeceshihiin waxaad samayn lahaydeen dee subscribe-ka badin lahaydeen like waxaas wuxuun dee action baa bixin lahaydeen marka waxaan arkay inaydan rabin laakiin waxaan idiin sii wadayaa don't worry kanaan English wadisa maanta kanaan idin akhriyayaa okay shimbirtaayar baan maanta idin akhriyayaa waxaa la yidhaahdaa the ugly duckling okay bismillah bisinka wax kastaba lagu furaayo bisinka bismillah okay once upon a time there was a mother duck who had 7 little ducklings. 6 of them were soft and fluffy and yellow and say quack. waxaan bari jirtay shimbirtan yare biyaha ku wareegtay webiyada iyo meelaha biyo fadhiisinka ay fadhiyaan inta badan bay ku nool yihiin shimbirta adhoona shimbirta wax lagu yiraahdo af Soomaali sorry qof weyn baan ahay laakiin af Soomaaliga yare waxyaabo badan oo xayawaankan halkan ku aragnay magacoodan baan xaga aan ku aqoonin duckling adhoona duckling wax lagu yiraahdo af Soomaali anigu shimbiru ma iska idhaahdaa shimbir marka shimbirtan waxay dhashay 7 caruur 7 ay dhashay marka 6 kamida midabkoodu waa huruud marka codkooduna waxa weeye waa isku wada mid cod gaar ah leeyina quack bay oranayaan okay waa 6 kamida way caruurta the 7 duckling was the 7 duckling was quite different. He was grey and picky and had a long neck and couldn't say honk. shimbirta yare 7 way ka duwan tahay kuwii kale 6 kale okay waxay kaga duwan tahay midabkiisu waxa weeye grey waa madow iyo waa madow khafiifa waa madow khafiifa noqon kartaa af Soomaali qoortiisuna waa qoor dheer shimbiraha kale uu ka qoor dheer yahay dhogortiisu way taagtaagan tahay maaha sida kuwan kale ee jilicsan ee flo maxaan dhahdaa softiga maaha kuwiisa waxa weeye waa yara way taagtaagan tahay waxa way mudmudan tahay oo way ka duwan tahay kuwa kale codka uu bixinayo maaha codkii 6 kale bixinayeen wuxuu sameeyay codkiisu waxa weeye waa honk boodhanaya codkiisa marka caruuray 7 shimbirood 6 waa isku midna wuu ka duwan yahay okay waxa tiri the other duckling calling him ugly. He tried hard to be like it, but the other duckling never play with him. Oh, okay, sorry. Waan kan waxay caruurtii kale maxaan la socday mooday inay walaalayihiin ayaa waxay ku yiraahdeen waad fool xun tahay bay ku yiraahdeen marka wuxuu tijaabiyay inuu la ciyaaro oo isdhaafiyo waxay ku leeyihiin laakiin may la ciyaarin way diideen weligood lama ciyaarin okay his mom will shake it ahead hooyadii madaxa ay ruuxday quack
are you sure you are mine bay ku tiri codkeed dabisay kwak tiri waryaa ma ilmahaygii baa tahay weeye macnuhu ma ogtahay in ilmahaygii tahay dabeetana you are funny sort of duck waxaa tahay shimbir wax cajiiba waxay aragtay hooyadii ilmahan yaree shimbiraheeda daba socda inaanu ekay marka waxay leedahay ilmahan adigu ma dhalayna muxuu yahay ilmahan talo one day they all swam over this visit the duck on the other side of the river the ugly duckling always follow far behind maalmaha ka mid ah shimbirtii iyo carruurteedii dabaasheen marka webiga dhinaciisa kale tageen marka shimbirtii yareede ka goonida ahayd way daba socotaa laakiin way ka fog tahay meel fog bay maraysaa the other big duck hissing and pecked at him go away the quacky we don't like you you are not much of the duck way ka bajiyeen way ku maxaan dhahdaye baalashii ku horgorgufeenoo way ku qayqayliyaado way ku yamaanyuuqeen waxay hore naga tag waa naga hadh nooma ekid maxaad ahayd but Hank was all sad little duckling could say waxba mu odhanin hankun buu leeyahay wuu niya jabsan yahay wuu niya jabsan yahay marka halkaasaan maanta ku joojinayaa caruurey inta kale buugga 3 jeer mise 2 jeer baan idin akhriyaya insha allah bismi illaahi kariim intaasaan ku joojinayaa in yaroo sheeko caruurooda haddii haddaad doonaysaan in yar baan idin raacinaya soomaalida maxaa carruurta loogu sheekan jiray anigu waxaan sheekada laygu sheekeeyey berigan yaraa sheekada sii xasuustaa dagdheer dhimatoy dhulkii nabada baa la odhan jiray carruurnimada kalan ku heesi jirnay dagdheer waxay ahayd gabadh inaad ka baqataan baan diidayaa waayo dadkiina meelahan jooga carruura halka jooga too soft baa tihiin wax xuuxii xaxlaydka sheekeeya mahaba laakiin waxaan nahay very young age baan markii la nooga sheekeynayay waanu biqi jirnay laakiin waanu jeclaan jirnay we enjoying laakiin waan idinka sheekeynaya you are part of my maxaan dhahdaa culturekayga waa inaad barataan waa inaad yara baqataan yara noqotaan anaad yara sii dhegaysataan oo excited waxay ku dhamaatay sheekada noo sii wada weeyaan soo maaha okay dagdheer waxay ahayd gabadh dadka cunta waa cannibal bay la idhahda kuwani marka dhegta labadaa dhagood waa sheekada disalin ugu sheekeeyey dheg baa dheeray dheg baa weyn oo dheer marka waxay ku jiri jirtay buuraleyda waxaa la cave bay ku jirtay meel cave bay ku noolayd marka maxaan dhaha dadka iyadoo hurda markay maqasho sanqadh dhegtu istaagaysaa dadna waxay dhegaysanaysaa dad baa meesha maraya marka dadkay hunting ku samayn jirtay waxay hesho cuni karayso way cuntay marka gabadh baa ka badbaaday inan yar gabadha iyo inanka yar ka badbaaday inan yaroo adigu inanka yar bay ku sidatay dhabarka xanjeerka waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga carruurta marka xagga waxaanu leenahay tradition gooniya baan ku leenahay xagga ilmaha markuu yar yahay laguma riixo gaadhi iyo waxaan butcher iyo vogne iyo waxaa laguma riixo xagga dhabarkaad u ridanaysaa maraa lagu xidhaya halkaan lagu soo xidhaya marka waxaa yidhahdaa xanjeer baa la yidhaahdaa marka gabadha ilmaha yar xanjeerka ku sidatay marka way soconaysay adhoona meelay ku socotay iyo meel ka socotay laakiin meeshii maraysay dabeetana gabadhii bay eryatay gabadhii bay maqashay sanqadheeda waata eryatay gabadhiiba markaa way oroday way carootay markaasi tiri
markaasay tiri hospital waxaan kasii xasuusanay baalaay dabadeeda balboodii cadaanta daya bal buruqdeeda daya bal wiilkaysiidaata daya marka waxa weeye shako noocaas bay ahayd adhoolo shakadii halka ku dhamaatay laakiin waa intaa sii xasuusanaya weeyaan marka waxa weeye way gabadhaas way ka baxsatay English ma idinku bedelaya okay kuwa English aqoonino af Soomaaligiina waa ku garanaysaa there was a lady she was a cannibal she used to eat the human and she had a big ear and she used to live in the cave and her name is Dagder okay then one day she was in the cave and she heard the noise and she said oh it's a woman dinner time Betty dinner time and she tried to hunting the lady and with the baby she running on the butt luckily the lady and she ran fast and she jumped very high cliff and she get angry the dare get angry because she couldn't catch that lady she want to eat but she couldn't and she's so angry and she make the she say she make this little bit the song but I can't sing English but I explain to you that's the Dagder I remember as a child I hope you enjoying okay marka I hope inaad jeclaataan I hope maxaan inaad jeclaataan subscribe-ka dee bahasha subxaanallah subscribe-ka taabta idiin soo dhacday markaan idiin soo duubaba cajilo duulayso daawaha ka soo boodee wax ka soo rita oo daawada oo waxaan leeyahay waalidada caruuraha please u shida oo dhageystaan aniga kaliya maaha wixii Soomaali ku hadlayay caruur ku saabsan u shida caruurtu waxaan maxaan dhahdaa ku busy ku noqotay okay khayr baan rajeenayaa hadda guux maqashaan marawaxad ba ay baxaysa Dubai ma joogo Afrika ma joogo UK baan joogaa qorraxdu waa wac kuleelku waxaan ku cirku marayaa waa la hafanayaa meel marawaxad ba bawda ka haysa sorry hadda maqashaan qayliya buuq okay intaasan idinka maxaan dhahdaa raali gelinayaa waxaad yiri daawashooyinka bye